Pakistan ayaa sheegtay inay soo riday 2 diyaaradood oo ay lahaayeen militariga India ayna qabteen 2 duuliye taasoo uga sii dartay xaaladda colaadeed ee labada wadan ee leh awoodda nukliyeerka. Dagaalka ayaa salka ku hayay xiisadda gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Dooda lahaanshaha dhulkan ayaa bilaabatay 1947 markaas oo ay noqdeen dal xor ka ah gumaysiga Ingiriiska. India waxay qiratay inay lumisay 1 diyaarad iyo 1 duuliye. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in labada wadan aanay awoodin inay si khaldan u isticmaalaan hubka ay haystaan. Dagaalka ayaa ka gudbay aaga kala xadida dhulalka Pakistan iyo India markii ugu horeysay 1971. Talaabooyinkan waxay daba socdaan weerar argagixiso oo lagu dilay 40 ka mid ah ciidamada India kaas oo ahaa midkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay Kashmir qaybta India ay maamusho muddo 3 sano ah. Koox fadhigeedu yahay Pakistan oo lagu magacaabo Jaish Mohammed ayaa sheegatay weerarkaas. India ayaa abuurtay dood adag oo la xiriirtay in Pakistan ay wax ka ogeyd weerarka maadaama kooxda Jaish Mohammed ay dalbatay in India laga xoreeyo Kashmir. India waxay 20% kordhisay canshuurta waxyaabaha laga keeno Pakistan waxaana xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan. Labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee labada wadan ayaa u wacay safiiradooda waxaana India ay joojisay saamiga ay Pakistan ku leedahay heshiiska biyo wadaagga ee IWT. Pakistan waxay ku doodaysaa in India ay arrimo siyaasadeed u isticmaalayso qarax ismiidaamin oo ay koox mitida fulisay. India ayaa howlgal ay ka samaysay dooxada Kashmir ku soo xirtay madax sarsare oo gobolka ah oo loo heystay qaraxii Pulwama. sidoo kale israsaaseyn habeenkaas dhacday ayaa waxaa ku dhintay 2 ruux waxaana xigay duqaymihii ay diyaaradaha India ka fuliyeen xadka labada wadan 26 bishan taasoo sababtay maanta in Pakistan ay ku jawaabto diyaarada la soo riday. dadka ka faalooda arrimaha amniga ayaa ku baaqaya in si degdeg ah loo kala dhaxgalo labada wadan inta aanay xaaladdu gaarin marxalad aan waxba laga qaban karin. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan oo TV-ga ka hadlay wuxuu sheegay in haddii ay wax kala dhacaan in la gaari karo marxalad aanay waxba qaban karin isaga iyo Narendra Modi oo ah ra'iisul wasaaraha India. Khan wuxuu ogol yahay in India uu ku gacan siiyo in la baaro weerarkii 14 bishan ka dhacay Pulwama balse ra'iisul wasaare Modi weli ma uusan jawaabin. waa markii 10aad oo ay gacan ka hadal isku bedesho xaaladda gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. maxay noqon kartaa tallaabada xigta ee labada wadan?